بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا سو دواada bal waxa doonayaa kilib yar inaan ummadda Soomaaliyeed kula hadlo wad aragtiin wiilkan Soomaaliga oo Mareykanka ku dhashay oo sidaas loo dhibayo guud ahaan waxaan u taxsiinayaa dadkii dhibaato ka soo gaartay odagii qaanka ahay Trump iska dhig ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaya balse walaalayaal markii runta laga hadlo كسب سميسناي ay ka timid dhibaatada maalmo ka hor ayaa ku arkay Facebook sheekh qurbaha ku nool oo qaylina oo dhahaya waxa ka baqay dulmiga Soomaaliya ka socda inay soo gaarto wallahi sidaas uu dhibaato Soomaaliya dulmiga la sameeyay waxa ka baqay in guryaheena nagu timaado qurbaha ayaa ka cabsanay walaalayaal ilaahay adduunka wuxuu u abuuray imtixaan dadka lagu salado qof wajo iyo baahi wadankeena Soomaaliya markii la isku xoog sheeganayo markii la isgubayo markii qof wuxuu haysta ka qaadanayo markii la saxaqirayo dadka aan soo biilaysiin aad soo quudinaysiin waxba idin tirimayso وما سي سعود دونتو غريين تكو imaanaysa dhibka guryaha aad ka soo shaqeynaysiin ayaa qof rabi keenaya hal tusaale siinaya wadanka la yiraahdo Ukraine Lubnaan Dimashq Lubnaan Beirut and Syria meel ka nool fiican ku jiri maanta rabbi wuxuu ka dhigay dugaa fatra buu ka dhigay bima dulmi dadka ay geysteen ilaahay markuu caasiyay marka adduunkan waa daar imtixaan bal anigoo kale hadda koonfur Afrika 2003 markii laga soo raacadeeyay markii noloshii Soomaaliya ay baabi'iyeen waxa yaab leh waxa aad yaab badan nin gabar gabar aqbay adeer u ah oo Arsalayn ku sigayay inuu hormud u noqday in nolosha baabi'iyo waa adeer u socdo Yurub Mareykan u socdo laan sugaya ayuu wuxuu baabi'ay nolosha baabi'inaya in gabadha laga furto la soo raacay nolosha la baabi'iyo ayuu ku teamkaas ku biiray bal muxuu keenay wakaas gurigiisa markay u tagay ay ugu tagtay marka walaalayaal ilaahay rabbil caalamiin oo soo laabano waxa filaya dadka Mareykankana ayaantan sadaqada way yareeyeen waag hordii wax isku aruuriyaan abaaray dadka ay kaalmeey jireen taas ilaahay shidada